السلام عليكم صاحبي الفيديو كون waxaa uga hadli rabaa qaabka HTML file loo sameeyo so editorkeena soo kacsanay Visual Studio Code marka ugu horeysa waxaan sameynaynaa editorkeena markaa soo kicino marka ugu horeysa qaabkan u soo kaca so close iska dhigaysa calaamada kadib marka hore inta aadan file HTML sameynin waxaa laga rabaa inaad sameyso folder inaad soo sameysato so folder inaad soo sameysato waa marka koowaad waxaa ku dhufanaysaa halkaas file ay ku qoran tahay ku dhufanaysaa so halkaas file ay ku qoran tahay markaa ku dhufato kadib waxaa ku soo baxa halkan new file new window open file open folder markaa rabto folder inaad soo sameysato oo aad editorkaaga aad soo gashato aad rabto gudaha so open folder aad dhehaysaa so open folder ku dhufanaysaa control plus o so shortcut-ka waaye so open folder markaa dhahdo computerkaaga gudihiisa ku keenaa computerkaaga gudihiisa markuu ku dhex keeno marka meesha rabta ayaa folder kaga sameysan kartaa so aniga marka hadda desktop-ka ku dhufana desktop-ka ku dhufta halkaana folder kaga sameysana so halkaas new folder ku dhufan kartaa sidoo kale meeshaan banana imaan kartaa right click ku siinaysaa kadibna halkan new ku dhufanaysaa so waxa ku soo baxa halkan folder ku dhufanaysaa so magacana iska tiraysaa marka magacaarta u baxsanaysaa so haddana waxa u baxsan rabaa crash course u baxsanaa folderkeyga crash course u baxsanaa so magacaarta u baxsan kartaa folderkaada kadib folderkii crash course u baxsaday waa kana hadda aragteen saaxiibayaal so gudaha soo gelini so waxa u bixini crash course u bixini waa ka so marka halkan waxa ku yaala afra ku taalo so new file inaad sameysato file cusub inaad sameysato gudaha crash course folderka ku dhex sameysataa sidoo kale halkan waxa ku yaala new folder so in micnaha folder aad ku dhex sameysataa crash course sidoo kale halkaana waa refresh waaye inaad refresh gareyso waaye sidoo kale halkaana waa explore waaye so markan aniga hadda folder waa soo samaystay folder kaleeta ma rabo oo kan gudihiisa aan kusii samaysto marka waxaa u baahanahay file HTML ah inaad sameeyo so file HTML ah waxaa ku dhex sameynaa folderkeygii crash course-ka so halkan waxaa ku dhufanaa new file ay ku qoran tahay so marka new filekaaga magac u baxsa waaye magaca new filekeyga waxaa u baxsanaa index.html so waxaa arkaysaa index markaa ku dhuftay so wax iima soo baxayaan oo calaamad ah so laakiin markaa extensionka aan raacayo .html oo khasab ah inaad raacaysa filekaaga markaa rabto document html inaad sameysato ama file html ah index.html so waa kana html5 halkaas kasoo muuqatay enter markaa dhaha so waxaa ku dhex jiraa filekeyga html-ka ku dhex jiraa oo wax waliba oo aad ku qorto waa arkaysaa so hadda halkan haddaa dhaha hello world aan dhaha halkan waxaa arkaysaa oo aan micnaha aan ku sameeyo aan rangareeyo oo aan dhaha starty debugging ama F5 aan dhaha ijima dooranaa mase chromeka dooranaa aniga chromeka raba inaan isticmaalo chromeka dooranaa so waxaa aragtaan saaxiibayaal halkan shashada aweynayo waxaa aragtaan so saaxiibayaal waxaa aragtaan waa kana hello world so hello world ayaa noo soo baxday marka sidaas aad ku sameysan kartaa HTML5 aad ku sameysan kartaa so haddaa fiirina waa kana browserkeena Google Chromeka haddaa fiirina oo halkan right click aan ku dhahnaa oo halkan inspect aan ku dhufanaa waxaa arkaysaa inaan ku dhex jirno HTML so inaan ku dhex jirno HTML5 inaan ku dhex jirno arkaysaa so waxaa arkaysaa HTML5 elementiska waa kuwana HTML waa ka headka waa kana so waxaa arkaysaa baadiga oo aan ku dhex qornay hello world waa kaasa so HTML-ka aan ku soo xirin waa kana so saaxiibayaal waxaa aragtiin marka sidaas qaabkaas fudud waxaa ku sameysan kartaan HTML file qaabkaas fudud ku sameysan kartaan so marka videoga intaas uu ku egyahay waa inoo socon doonaan videoyashan tutorialiska oo course-ka dham aan uga hadli rabno so waxaa idinka codsanaa in channelka subscribe anoo saartaan like anoo saartaan inoo share gareysaan saaxiibada aan awoodin inay kataan koorsooyinka aad micnaha aad u share gareysaan sidoo kale gruubyada aad ku jirtaan WhatsApp-ka ee ardada ah
aad ku sheer garaysaan si ay uga faa'iidaystaan ardayda Soomaaliyeed ee inagana inoogu duceeyaan. Saaxiibayaal like saaro, sheer gareeyo, subscribe inoo saaro, anaga dhiirigelin inoo tahay in micnaha aanan ka caajisin oo mar kasto aan tutorialskeena saan aan usoo gelinaa. waa mahadsantihiin. waa inoo fiidiyowga ku xiga fiidiyowgan insha Allah. nabadgelyo.